السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. intaynan chapter kan bilaawin anba aynan guda gelin markii hore waxaan islahayn accounting-ka kaga shaqeeya qaabka lagu shaqeeyo amba Excel-ka xisaabaadkiisa sida lagu shaqeeyo. Marka intaynan Excel kaga shaqeyn waxa lagama maarmaan noqday inaynu chapter kasta oo accounting markaan dhigna aynu xisaabtiisa kaga shaqeyn doono Excel-ka. marka halkan waxaanu maanta ku sharaxaynaa waa chapter 1kii. chapter 1ku markaynu dhamayno xisaabaadkiisana waxaanu kaga shaqeynaa Excel. marka chapter 1 baynu guda geli doonaa. haddii aan chapter 1 guda galno, chapter 1 objective buu leeyahay. objective-ku chapter 1 leeyahay waxa uu ka kooban yahay waa describe the nature of the business, inaynu qeexno dabeecadda uu leeyahay businessku amba ganacsigu. inaynu sidoo kale eegno oo aynu qeexno roolka uu ka ciyaaro xisaabaadka accounting-ku ganacsiga. sidoo kale waxa weeyaan inaynu eegno important of business ethics, muhiimadda uu ganacsigu leeyahay anshaxa iyo mabaadi'da asaasiga ah ee anshaxa. sidoo kale waxa weeyaan inaynu qeexno professional accounting wuxuu yahay professional accounting. inaynu soo summarize garayno the development of accounting, horumarinta xisaabaadka accounting-ka principle-lada inaynu soo summarize garayno. state the accounting equation, inaynu sheegno xisaabaadka amba equationska accounting-ka inaynu sheegno. haddaba tables of the business amba tables of business, qaybahu businessku ka kooban yahay. marka business la yiraahdo waxa soo galaya product amba manufacture. haddaba product-ku amba manufacture-ku way firbadeeyeen, waxyaabo badan baa laga ganacsanaya amba ganacsiga waxyaabo badan buu ka koobnaanaya. waxyaabaha waxaa ka mid ah General Motors oo sida car, gawaarida, trucks-ka, Intel oo noqonaysa computer-ka, iyo shaybiska, jet oo noqonaysa diyaaradaha yaryar, aircraft-yada diyaarada waaweyn, iyo dhammaan ay nooc kasta oo manufacturer. haddii aynu eegno tables of the business-ka service, adeegyadu bixinaya businessku waxaa ka mid ah entertainment, madadaaladii, transportation, safaradii, hospital, adeegyada bixinayaan hospitaaladu, telecommunication, isgaarsiintii. haddaba there are 3 tables of business organization, waxaa jira 3 qaybood oo u kala baxo businessku. waa proprietorship oo ah qofka keligii hantiila ah amba keligii ganacsiga aas-aasay ee iska leh. partnership oo noqonaya ganacsi la wada leeyahay, business la wada leeyahay. iyo corporation noqonaya ganacsi shirkado wada leeyihiin. haddaba haddii aynu mid kasta isdul taagno, proprietorship waxa weeyaan owned by one individual, waa ganacsiga hal qof leeyahay, hal qof aasaasay businesska hal qof leeyahay weeyaan. haddaba faa'iidadiisa haddii eegno way fudud tahay ina organizing law of cost, qaabka loo habeynaya aad buu fudud tahay, qiimaha ku baxayaana aad buu u hooseeyaa maadaama hal qof leeyahay. faa'iido darradu leeyahay waxa weeye sourceskiisu aad bay u limited yihiin, u xadidan yihiin. financial resource-ka limited amba aad bay u xadidan yihiin. deymaha uu gelayaa waa unlimited, ma xadidna. partnership
waa ganacsiga la wada lahaa ganacsigaasoo one or two more in ka badan ay wada yeelan karto ganacsiga haddaba faa'iidadiisa waxaa ka mid a ganacsiga more financial resource wuxuu leeyahay khayraad amba xisaabaad maaliyadeed oo aad u badan marka propertyshipka loo eego hantida amba ganacsiga qofka keliya loo eego waxaa kaluu leeyahay additional management skills wuxuu leeyahay maamulayaal xirfad u leh faa'iido darradu leeyahay waxa weeye unlimited liability deymaha ama deymuhu gelayaa ma xadidna unlimited weeye corporation waxa weeyaan shirkaduhu faa'iidaday leeyihiin waxa weeye the ability to obtain large amount of resource by issue stocks waxay leeyihiin xaddi badan oo amountisa oo resource ah sidoo kale waxay faa'iido darradoodu tahay double taxation in laba jeer la cashuuro ama cashuurtii laba jeer double taxation laga dhigo haddaba business strategy muxuu noqonayaa waa maxay ganacsiga strategigiisu markaynu ganacsiga eegayno strategigiisu waxa weeyaan inuu plan lahaado inuu qorshe yeesho action sidoo kale ganacsigaas inuu faa'iido leeyahay ganacsigaas inuu tartamayaasha inuu ka guulaysan karo uu profit soo xareynayo oo aanu loss soo xareynahayn sidoo kale ganacsigu waxa weeyaan strategigiisa waxaa ka mid a alaabtu soo saarayo designka tahay iyo adeegu bixinayo acceptable inay aqbalaan adeeg quality leh adeeg tayo leh sidoo kale waxay noqonayaa adeeg qiimo hooseeya lagu iibiyo si uu la tartamo competitorska amba ganacsiyada kale sidoo kale waa inuu ganacsigu yeeshaa different strategiyo kala duwan waa inuu yeeshaa marka ganacsigu strategiyo kala duwan yeesho hadday tahay productiga adeega iyo unique iyo dhammaan customerska iyo premium priceka haddaba business stakeholders waa maxay daneeyayaashu business stakeholders person business stakeholders wuxuu noqon karaa in shakhsi daneynaya siduu ganacsigu u shaqeynayo sidoo kale wuxuu noqon karaa hay'ad daneynaysa siduu ganacsigu u shaqeynayo amba hay'adaha daneynaya oo xiiseynaya inay ogaadaan qaabku ganacsigu u shaqeynayo economy ahaan dhaqaale ahaan iyo businesskuba haddaba process of provide information waa maxay habkay marayaan ay provide ku ogaanayaan information xogtan stakeholdersku waxay ku ogaadeen qodobka koowaad waxa weeyaan identify stakeholdersku inay caddeeyaan internal owners yaa leh ganacsiga amba qofka ganacsiga asaasay ee iska leh managerska maamulayaasha iyo shaqaalahaba sidoo kale inay ogaadaan daneeyayaasha shirkaddu external oo noqonaya customerku haysto businessku creditorska governmentiga sidoo kale assist stakeholders information needs waxay u baahan yihiin inay ogaadaan amba informationka u baahan yihiin stakeholdersku waxa weeye design qaabku u dejisan yahay amba u design garaysan yahay the accounting information xisaabaadka accounting ee la rabo system ahaan to meet inay egaan stakeholdersku needs sidoo kale recordada economy dhaqaale ahaan data about business iyo datadu ganacsigu leeyahay
activity uu shaqeynayo and events iyo dhacdooyinka. sidoo kale stakeholders waxa weeyaan inay ogaadaan prepare account report for stakeholders, in la diyaariyo report accountina oo ka hadlaya qaabkii doonayeen stakeholdersku inay ganacsiga u ogaadaan ama daneeyayaashu. General acceptable accounting principle oo la yidhaha GAAP waa qaacidada amba waxa weeyaan general acceptable accounting principle GAAP. haddaba businessku waxa weeyaan inuu concept ka haysto uu xog ka haysto limited economy, xaddiga uu dhaqaalihiisu taagan yahay, data xogtaasoo accounting ahaan ku jirta systemka of accounting amba systemka xisaabaadka, taasoo activity-gu of the business qaabku shaqeynaya amba activity-gu qabanayo ganacsigu. the cost concept inaad cost ka haysato exchange price, isbedelka sarifka lacagaha, iyo sidoo kale inaad record garayso account records. objectiveka looga baahan yahay conceptka businesska waxa weeye the account record and report be based inaad record garayso reportyada iyo dhacdooyinka xisaabaadka kala duwan. sidoo kale inaad cabirto ood concept ka haysato dhaqaalaha ood ku record garayso qaab dollar ah. haddaba waxaanu kasii bilaabi doonaa chapterkeena the accounting equation, formulada amba qaacidada amba isleegta uu ka bilaamayo accounting equation. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.